السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo maanta waa Arbaco taariikhduna waa 28 May sanadka 2025 waa barnaamijkeena labaad ee maanta aan idin soo gudbinayno qodobo muhiim ah inuu barnaamijka idin kugu haynaa Netanyahu oo yiri waxaan dilnay hogaamiyaha ka tirsan Hamas oo la yiraahdo Mohammed Sinwar kaasoo la dhashay Yahya Sinwar laakiin warbaahinta iyo hay'adaha ammaanka Israa'iil oo arinka ka diiday odaygii oo ku dhex ceeboobay baarlamaanka Israa'iil ee kiniisadka uu maanta khudbad u jeedinayay waxyaabo aanu jeclaysan oo uu halkaa uu ku arkay haddaba tafaasiil ku saabsan sheekadaas waan idiin soo gudbin doonaa ra'iisul wasaarihii hore Israa'iil Ehud Olmert oo markii ugu horeysay markhaati ka noqday in waxa Gaza ka dhacaya ay yihiin xasuuq ay geysanayaan Israa'iiliyiin taasoo walwal fara badan ku sii abuurtay Netanyahu awalba maxkamadu raadinaysay iyo saraakiisha ciidamada oo iyaguna arinka uu u keeni karo sida la leeyahay in waaran laga soo saaro haddaba sheekooyin la yaab leh Israa'iil gudaheeda oo gooxaysa lagana baqayo in dagaalo dhexdooda ay qarxaan ayaynu barnaamijka ku faahfaahineynaa qaybta dambe waxaan idinku hayaa madaxweynaha Indonesia oo la kulmayay madaxweynaha Faransiiska ayaa hadallo ku saabsan Gaza halka ka jeediyay oo warbaahintu ay aad uga hadlayaan talow muxuu sheegay barnaamijkan ku faahfaahin doonaa qodobada ayaynu barnaamijkeena galabnimo idinkugu soo gudbin doonaa inta aan ku jirno haddii warar cusub ay soo kordhaan waan idin la socodsiin doonaa kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo maanta waa Arbaco waxaynu ku bilaabaynaa Netanyahu maanta wuxuu tagay baarlamaanka Israa'iil ee la yiraahdo kaniisadka halkaas waxaa fadhiya mucaaradkii oo dhan way joogaan waxyaabahaas waxaaba uga sii daran waxa meesha loogu soo diyaariyay qaar ka mid ah dadka eheladooda lagu haysto Gaza oo ninkan u arka caqabada weyn ee dadkooda ay u soo bixilayeen isaga iyo kooxdiisu inay yihiin waxay soo qaateen boorar waxay soo qaateen waxyaabo aflagaada odaga nagta looga saaray wixii oo dhan meeshii camiran uu soo galay ninkii markaasuu wuxuu damcay inuu dadkii qanciyo macnaha shacabkii baan la hadlayaa guulaha aan gaarnay uu yiri wuxuu sheegay guulaha aan gaarnay waxa ka mid ah uu yiri inaynu dilnay nin la yiraahdo Mohammed Sinwar waa da'dii ka yarayd Yahya Sinwar waa ninkii hogaaminayay Hamas waad ogtiin dhawaan la dilay ninka walaalkiis ayaa lagu xamanayay inuu isagu madax ka ahaa Gaza waayadan laakiin Hamas cid madax u ah ilaa hadda oo ay sheegtay ma jirto marka warbaahinta iyo waxa ay sheegayeen in ninkan wuxuu ka hadlayo ayaa kala duwanaaday Netanyahu wuxuu yiri ninka waa dilnay meel tunnel ama god dhulka hoostiisa isagoo ka soo baxaya meel isbitaal u dhow isaga iyo qolo kale oo saraakiil ayaan dilnay hawshaas uu ka hadlay wuxuu kaloo ka hadlay qorshaha isaga iyo xukuumaddiisu ay kala yihiin wada hadallada waana la dhaleeceeyaa xataa xaaskayga loo gudbay aniga iyo xaaskayga dhaleecaynana lagu hayaa waxyaabahaas u daldalay laakiin mucaaradku way ku ooriyeen dadkii kale oo eheladooda meesha joogan waxay yiraahdeen beenaala tahay marka wararkiisa say isu burinayaan iyo sida ay warbaahinta u daba dhigatay waa noo soo socotaa laakiin marka hore warbixin kooban telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa qaylo wuxuu kala kulmay mar uu jeedinayay kelmad asagoo ku sugan kiniisadka baarlamaanka la yiraahdo ee Israa'iil waxaana halkaa uu kala kulmay qayladaasi iyo aflagaadadaas dadka eheladooda lagu haysto Gaza ee Israa'iiliyiinta ah haddaba waxay kor u qaadayeen dadka qaraabada la dadka la haysto boorar ay ku codsanayaan xukuumadda inay heshiis la gasho oo markaa lagu soo daayo dadka la haysto waxayna ku eedeynayaan Netanyahu boorarkaas iyo dadkaba ku qaylinayeen inuu markaa isagu wado iska daba wareeg
ku saabsan inaanu doonayn in maxaabiista la sii daayo. marka ninkan marka wuu qayliyey wuxuu yidhi annaga dadaalaan wadnaa kanaan wadnaa guulaangaan. markiiba warbaahinta Israa'iil ayaa war soo saartay inta aanu ka bixin isaga maaragtay aqalka baarlamaanka inta aanu ka bixin ayaa war la soo saaray journaalkii Haaretz journaalada waaweyn oo ka mid yahay Israa'iil. Haaretz marka war soo saaray isla markii warbaahintu waxay la xiriireen hay'adaha ammaanka waxay yiraahdeen ninkan warka uu ka sheegayo baarlamaanka ee Mohammed Sinwar in la dilay maruna maxaa xogo ka yisir adika amniga qaabilsan sirdoonka qaabilsan ninkan yaqaana in la dilay in kale xogta adikaasiya mise isaga iska maamushay maskaxdiisu iska maamush. haddaba marka arintu soo sheekay yaab leh journaalka waxa leeyahay Haaretz ayaa wuxuu leeyahay hay'adaha ammaanka Israa'iil waxay cadeeyeen inaanay iyagu markaa cadeyn karin in la dilay Mohammed Sinwar. haddaba journaalka Haaretz wuxuu leeyahay hay'adaha ammaanka Israa'iil waxay toos u khilaafeen hadalkii Netanyahu uu jeediyay. hay'adaha ammaanka Israa'iil waxay leeyihiin annagu ma cadeyn karno inuu dhintay Mohammed Sinwar. marka maxay leeyihiin jaraa'idka warbaahintu waa beenaale. hay-adihii ammaanka oo warka uu ka rabay inay siiyaan oo u cadeeyaan ayaa waxay taagan yihiin ma cadeyn karno annaga ninka inuu dhintay iyo in kale. laakiin ninka meel uu kala yimid ma naqaano isaga iskaga xariiftamay ninka waa dilnay ninka isaga u taalay laakiin annagu cadeyn ma hayno ninka inuu dhintay. hay-adihii amniga warka laga qaadanay hadana ma hayno. markaas haddana meeshii ninkii waa ceeboobay fawdadii iyo qayladii iyo buuqii iyo wixii ayaa ku sii batay. waaye qodobka marka halkaas ay kaga gudbaynaa ninkii marka xitaa naagtayda ama xaaskaygii aniga maaragtay waana la dhibaataynaya nimankan mucaaradka inta jooga ayaa warar qaldan faafinaya ehelada dadka markaasay nagu kacayaan waxaasu daldal ninkii waa wareera. marka meeshii marka waxaa leeyahay ninkii al-cumuum waxay yidhaahdeen warbaahinta Israa'iil ninkan meesha markuu tagay wuu ku ceeboobay maad baarlamaankan wadmada u jeedina inta yiri ayaa ceeb iyo fadeexad ka soo raacday yiraahdeen. waaye warka marka xiisaha leh ee barnaamijka galabta ku jira wuxuu yahay Ehud Olmert nin la yiraahdo ra'iisul wasaare ahaan jiray Israa'iil waliba waagii George W Bush iyo ragaas ayuu ra'iisul wasaare ahaa Ehud Olmert. Ehud Olmert war la yaab loo sii daayay. yahuudda way ka dhuudhuumataa madaxdooda way ka leexleexdaan. maxkamadii dambiyada wixii ay ku qirtay madaxdan oo loo haystay oo been waay ay lahaayeen ayuu qiray isaga. haddaba marka aan idin tuso warbixin Al-Jazeera ay ka diyaarisay hadalka ra'iisul wasaaraha waxay tiri Olmert wuxuu yiri Israa'iil waxay gashay dambi dagaal oo Gaza ka dhacay. ra'iisul wasaaraha Israa'iil ee hore Ehud Olmert wuxuu yiri Israa'iil waxay gashay dambi dagaal oo Gaza ka dhacay waxaana uu sheegay in arintani ay keenayso dhibaato. waxaana waxyaabaha dambiga dagaal ka mid ah in dadka masaakiinta la gaajeysiyo la xasuuqo oo la iska laayo iyadoo arinkaana la sheegay in markaa hadaf la'aan waxaasoo dhan loo samaynayo hadaf military oo meel u socdo aan la garanayn ayaa waxaasoo dhibaataa loo gelayaa ayuu leeyahay ninka la yiraahdo Ehud Olmert. maslaxa qaran ma aha maslaxa shakhsi waayo. waxa dadkan loo laynayo oo dambi dagaal loo galayo oo dadka loo xasuuqayo loo gaajeysiinayo maslaxa shakhsiya waayo. maslaxa wadaniya ma maslaxad qaran ma laakiin waa maslaxad shakhsi. marka wuxuu dhahay waliba Israa'iil xukuumadda way tartakibu majzara macnaha waxay gashay xasuuq geysatay waa Israa'iil